soo dhawaada daawadayaal galab wanaagsan qodobada xiisaha leh aad maanta galabnimadan aad halkan ku daawan doontaan kuwooda ugu xiisaha badan waxa kamid ah ugaaska beesha Ciise ugaas Mustafa Ibrahim oo dawladda Djibouti ka dalbaday in ciidamo tiro badan loo soo diro haddaba tiro intee leeg ayaa dawladda Djibouti ay markan u wareejin kartaa ciidamada geesiyaasha beesha Ciise maxayse tahay sababta rasmiga ee ka dambayso in ugaaska beesha Ciise uu dalbado garab iyo waliba sidoo kale gaashaan dhanka dawladda Djibouti ku haya faahfaahinta xogtaasi qodobada kale ee xiisaha leh dalkan ku daawan doontaan galabnimadan waxa kamid ah madaxweyne ku xigeenka maamulka Somaliland oo sheegay in laga markaasi in laga barakicin doono magaalada Sayla ciidamada geesiyaasha beesha Ciise haddaba madaxweyne ku xigeenka Somaliland oo markale la jirsanaya maleeshiya beeleedka Samaroon iyo Gudubursi maxayse ka yiraahdeen ciidamada geesiyaasha beesha Ciise hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweyne ku xigeenka maamulka Somaliland iyana waan ku hayaa faahfaahinta xogtaasi sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh galabnimadan haddii ay baraali laga helo aad halkan ku daawan doontaan waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo ciidamo tiro badan geysay magaalada Jowhar iyo waliba sidoo kale halkaasi oo laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo xoogan oo isugu soo horjeeda ciidamadan tirada badan ee halkaasi la geeyay maxay tahay sababtooda ma waxa la doonayaa sidii lafti gareen magaalada Baydhabo loogu qabsaday in Jowhar loogu qabsado madaxweynaha maamulka Hirshabelle qodobadaas iyo kuwa kale oo aan idin qarinaya ayaad saaxiib yaal halkan ku daawan doontaan soo dhawaada anigu waxaan ahay Abdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanaalkayga Macaash Media haddii aad markuu ugu horeysay fadlan kanaalka rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysid la garay siin share garay oo saaxiibadaada la wadaag mahasani daawade hagaag aynu ku bilaawno kamid noqon saaxiibada cusub ay gaarsiin lahaa 5,000 subscribe wax yar oo kaliya ayaa nooga dhiban saaxiib yaal waxaan idin ka rajeynayaa maalmaha soo socdo inaan u dabaaldegno 5,000 oo subscribe mahasanideyn hagaag aynu ku bilaawno qodobkeena ugu horeeya ugaaska beesha Ciise ugaas Mustafa Ibrahim ayaa dawladda Djibouti ka dalbay gurmad ciidan oo tiro badan in loogu soo diro gudaha magaalada ama markaasi deegaanada Sayla iyo Silil oo maalmihii u dambeeyay halkaasi dagaal xoogan uu markaa u dhaxeeya maleeshiyada beelaha Gudubursi iyo Samaroon isku dhinaca oo ay kula jireen ciidamada geesiyaasha beesha Ciise sheekada halkaasi waa ay ka soo tagtay ciidamada maamulka Somaliland ayaa sidoo kale qayb lixaad leh waxa ay ka soo qaadanayaan ama qayb ay ka yihiin dagaalkan beesha Ciise ay kula jirto maleeshiyaadkaas soo aruusday balse daawade ugaaska beesha Ciise ayaa markan dhiida ka gaartay isagoona gurmad ciidan uu ka dalbaday madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle isagoona ugaaska uu fariintaasi u diray isagoona markaa ka dalbanaya ciidamo tiro badan oo ka mid noqonaya difaaca deegaanka markaasi la magac baxay ama deegaanka la rajeynayo in dhawaan loo caleemo saaro ee maamulka Guban State ayuu markaasi ay ka dalbadeen inay gurmad iyo gaashaan ay la soo gaaraan maadaama awood ka tan badan oo maamulka Somaliland ay halkaasi soo gashay maxayse ka jawaabeen dawladda Djibouti iyagana dhankooda faahfaahinta xogtaasi oo idil ayaan markaasi soo koobi doonaa ugaaska beesha Ciise ugaas Mustafa Cabdi Ibrahim ayaa dawladda Djibouti ka dalbaday inay u soo dirto ciidamo dheeraad ah dalabkan ayaa yimid kadib markii ay sii kordhayeen xiisadda iyo waliba sidoo kale dagaalka ka socdo deegaano ka tirsan waa deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada geesiyaasha beesha Ciise ugaaska ayaa sheegay in xaaladda markaasi ay u baahan tahay faragelin degdeg ah si loogu markaasi ilaaliyo shacbiga xasiloonida iyo waliba sidoo kale guud ahaan dawladda Djibouti ay wali markaasi ka codsanayaan in ay garab weyn ay ka helaan inkastoo dawladda Djibouti aan wali rasmi ah aysan u maalgelin jawaabta dalabkaasi balse haddana waxa muuqato dhawaan in ay jawaabo degdeg ah ay bixin karayaan ilaa iyo 12 askari ah ilaa iyo 110 askari ah ayaa la filan karayaa in ciidamada geesiyaasha beesha Ciise loo diro iyo sidoo kale ciidamo markaasi sidoo kale ay ku jiraan kuwa tababar markaasi aan caadi ahayn qaba oo ay dagaalkan qayb ka noqon karaan ugaaska beesha Ciise ayaa dalabkiisii yimaaday kadib markii duulaana qaaban lagu soo qaaday ciidamada geesiyaasha beesha Ciise furimo ay halkaasi ay ku sameysteen Sayla iyo Silil iyo meelo kala duwanba balse xaaladdu waxay u muuqataa daawade mid aan waxba la isku cuneynin ciidamada geesiyaasha beesha Ciise oo tababar adag qabana waxay diyaar u yihiin in cid kasta oo duulaan ku soo qaado oo ay cagta mariyaan
xaaladii ugu dambeeyay gobolka Awdal iyo Salil waxa ay naqatay in dagaalka foolka la isku taabto iyadoona maamulka Somaliland ay iska dhigeen kuwa waan u socdo kadib markii ay soo dhaxdhigeen in waxa la rabay ciidamada geesiyaasha beesha Ciise markay hubka tiiriyaan in markaasi budubada loo daaro oo gabi ahaanba la baabiyo balse xaaladaasi oo lagu fahmay awgeed maamulka Somaliland ayaa duulaan toos ah waxa ay ku yihiin ciidamada geesiyaasha beesha Ciise ugaaska beesha Ciise oo ninka talada ka goodana waxa uu sheegay inaysan istaagi doonin ilaa midkood uu nool yahay mooyee dhanka kalena hadii aan fiiriyana madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somaliland ayaa sheegay in markaasi la ciribtirayo ciidamada geesiyaasha beesha Ciise horey waxa markaasi isku dayay maleeshiya beeleedka Samaroon iyo Gudubursi inay dhigaha u laabaan ciidamada beesha Ciise balse laakiin geesiyaasha soo mijistaanka ah ee u dhaartay inay difaacaan dadkooda iyo deegaanadoodaba waxay diyaar u yihiin hari haween inay ka hortagaan cid kasta oo isku daydo in duulaan qaawan ay ku soo qaado balse ciidamada geesiyaasha beesha Ciise ayaa markan u muuqata mid ay sii markaasi dhiifoonayaan maadaama marka hore shaar nabadeed loo soo gashtay maamulka Somaliland hadda se ay joogaan meel bannaan ah ayna diyaar u yihiin inay la dagaalamaan ciidamada geesiyaasha beesha Ciise dhanka kalena hadii aan fiiriyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo uu hanjabay waa markaasi hanjabaad culus u diray beesha Ciise wuxuuna markaasi sheegay in hadii xaaladdu ay la xakameyn waayo ay ciidamada Somaliland ay tilaabo adag ay ku qaadi doonaan magaalada Sayla hadalkaasi waxa uu sii kordhiyay xiisad iyo waliba sidoo kale iyadoona dadka deegaanka ee cabsi badan ay dareemayaan maamulka Somaliland waxa uu markaasi duulaan qaawan oo cad ay ku yihiin ciidamada geesiyaasha beesha Ciisuhu waxay hadda diyaar garow adag ugu jiraan sidii cid kasta oo ayaga duulaan ku ah ee isaga caabin lahaayeen balse arintan ayaan la ogeyn halka ay sida rasmiga ugu dambeyn doonto walow ay dadaalo ay wadaan odayaasha waxgaradka iyo culimada diinka haddana waxay u muuqataa in maamulka Somaliland uu si gardara ah ku maagaya ciidamada geesiyaasha beesha Ciise hadda se xaaladdu waa allowsal faanole faraka maqadna ay taagan tahay gobolka Awdal iyo Salil walow ay xaalado iyo waliba sidoo kale heshiisyar yar oo hadda la soo warinayo in la gaaray balse laakiin aysan waxba ka jirin ciidamada geesiyaasha beesha Ciise markii la yiri nabadda yaa diyaar u ah waxay ahaayeen dadkii ugu horeeyay farta taagay iyagoona aysan ka cabsanaynin maleeshiyaadka balse iyagoo markaasi farta taagtay ayaa la doorbiday in dhabarka laga toogto oo markii qoryaha ay dhigaan nabadana ay doorbidaan in iyagu colaada lagu sii kiciyo si aysan dib dambe aysan hub kale u soo qaadin oo la aafiyay ayaa la rabay balse laakiin aqliga iyo kartida waa loo dhashaa oo geesiyaasha beesha Ciise waa ay ka foojignaayeen wax walbo iyo dhagar walbo ay maleegaan maamulka Somaliland madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somaliland ayaana markaasi ah mid ka mid ah madaxda ugu mayalka adag ee kuwaas oo ku indhacad ama markaasi si gambasho lahayn uu u taageerayo beelaha Gudubursi iyo Samaroon qodobkeena ugu dambeeyana hadii aan fiiriyana dawladda Soomaaliya ayaa ciidamo hor leh waxa ay geysay maamulka Hirshabelle iyo waliba sidoo kale magaalada Jowhar si ay iyagu qayb ay uga noqdaan soo qabashada madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen kadib markii isagu dhowr markaasi 10 sano oo fadhiido ku noqday magaaladaasi haddase waxay u muuqataa sidii lafta gareen ku dhacday in isagana markaasi lagu sameeyo ama isagoo nool gacanta lagu soo qabto ama in deegaanka gabi ahaanba laga wareego ciidamo kale oo tiro badan oo kuwa gorgor iyo kuwa ciidamada xoogga dalka ayaa la geeyay inkastoo ay maamulka Hirshabelle ay sheegeen in ciidamadaasi loo keenay ay yihiin kuwa amniga sugayo maadaama doorasho ka bilaabanayso Hirshabelle iyaguna markaasi qayb lixaad ay ka naqanayaan ciidamada maamulka markaasi Hirshabelle iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa guud ahaanba ku sugan magaalada markaasi Jowhar iyagoona xaaladda amniga halkaasi ku sugayaan wararka soo baxaya ayaa sheegaya in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayaan in ay saameyn ku yeeshaan maamulka magaalada Jowhar waxa la sheegayaa in markaasi la qorsheynayo in waa markaasi la xiriirin karo nidaamka maamulka Jowhar ee markaasi la qabanayo sidii maamulka Koonfur Galbeed inkastoo aanan wali si rasmi ah loo xaqiijin guud ahaan xaaladda deegaankaasi waa mid markaasi kacsan dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo waliba sidoo kale abaabul dagaal ayaana laga dareemayaa meelo badan wali la markaasi hayo tiro rasmi ah oo dhibaatooyin iyo waliba sidoo kale oo la shaqaaqo yar oo dhacday
oo aan loogeen inta ay wax ku noqotay ugu dambeyn xaaladdu waxay markaasi u baahan tahay in si degdeg ah wax loogu qabto lana dejiyo xiisadda lagana fogaado colaadda iyo weliba sidoo kale iska hor imaatinka adigan muuqaalka daawanaya daawada aragtidaada qaybta hoose faalada noogu reeb waxaan sidoo kale kaa codsanayaa inaad youtube-ka soo subscribe gelisid oo muuqaalka laa garaysid aragtidaadan qaybta hoose faalada noogu reebtid daawada guud ahaan halkaas ayaan jeclay inaan kusoo gabagabeeyo qodobadaas ayay ahaayeen kuwii ugu muhiimsanaa ee aan halkan idinkugula wadaagi lahaa halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal intaan muuqaalkiisa xigaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo amaan allah